بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. waxaan kusoo jirnay suuratu tawba waxaan noo dambeysay laysa cala الضعفاء walaa cala الmarضى walaa cala الذiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun إidaa nasaxuu lilahi warasuulihi ma cala الmuxsiniina min sabiil walaa cala الذiina idaa ma atowka litaxmilahum. dadka aan dembiga usa saarnayn hadday dagaalka ka haraan oo ama tabarta daran ama xanuunsan ama waxa ay bixiyaan aan helayn, dadkaas ciriirigii iyo dembigii waa laga qaaday. kuwa aan heli karin wax gaadiidana sidoo kale oo nabi maxamed ku tiri laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow waacyunhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun. waxay ka murugaysan yihiin inaysan helayn waxa ay bixiyaan. dadkaas marka haddii aysan dembi lahayn oo aan waxba loo haysan, waddada iyo sabiilka ayaa lagu leeyahay maa cala almuxsiniina min sabiil. isagoo jiran haddii uu dagaalamo ama daciif ah ama waxa heli karin iska socdo, waa maa cala almuxsiniina min sabiil. inama sabiilu lak, waddadu waxay saaran tahay oo wax loo haystaa cala aladiina yasta'dinuunaka, dadka idanka ku weydiisanaya nebi maxamedow, wahum aghniyaa, ayagoo taajiriin ah oo maal haysta, xoog leh. dadka idanka ku weydiisanaya inay dagaalka ka haraan, kuwaasaa sabiilku korkooda uu yahay oo wax lagu leeyahay. raduu waxay raalli ku noqdeen bian yakuunuu maca alkhawaalifi, dadka haray inay ka mid noqdaan, dumarkii iyo caruurtii iyo marastii, indhoolayaashii, ducafadii, dadkii jiraraay. dadkaas khawaalifta ah inay la joogaan bay raalli ku noqdeen. wa tabaca allaahu calaa quluubihim, quluubtoodana ilaahay waa xiray oo wax khayra ma gelayaan, waa la daboolay. fahum laa yaclamuun, fahum laa yafqahuuna waa soo marnay, wax ay og yihiin ma leh. yactadiruuna ilaykum idaa rajactum ilayhim qul laa tactadiruu lan nu'mina lakum qad nabba'ana allaahu min akhbaarikum wasayara allaahu camalakum warasuuluh uma turadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada fayunabbi'ukum bimaa kuntum tacmaluun. aayadahan in badan waxay ka hadlayaan ghaswatu tabuuk, dagaalkii nebigu uu ku aaday ruum. tabuuk oo u socday ilaa 20 beri oo meel aada u fog ah. dagaalkaas markii uu nebigu ka soo laabtay, wax alla wixii munaafiqiin ahaay cudurdaar beenay sheegteen. waa ku arki doonaa markii aan tagno ghaswatu tabuuk, waxbaan ka taaban doonaa insha allah. yactadiruuna ilaykum, waxay idiin cudur daaranayaan adinka muslimiinta ah, idaa rajactum ilayhim, markaad u soo laabataan oo madiino timaadaan. hadda safar baa ku maqantihiin iyo jihaad, markaa ka soo laabatiin laakiin garowsho iyo cudurdaar bay sheegan doonaan. anugu saas baan ahay, aniga kana ahay, aniga keeraan ahay. yactadiruuna ilaykum, cudurdaar bay idiin sheeganayaan munaafiqiintu. idaa rajactum ilayhim, markaa u soo laabataan. qul waxaad tiraa nebi maxamedow laa tactadiruu, ha cudur daarannina. lan nu'mina lakum, idima rumaynayno cudurdaarkiinaan. qad nabba'ana allaah, alla noo waran, min akhbaarikum, wararkiinna ilaahay baa noo sheegay. wasayara allaahu camalakum wa rasuuluh, allah iyo rasuulkiisana camalkiinna way soo muujinayaan oo dadkay u soo muujinayaan adduunyada. waa laydin ceebaynayaa, laydin fadeexaynayaa. haddaaba ka midaba yaxlifuuna 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 wa minhum qul waxaad tiraa laa tactadiruu, waxba ha cudur daarannina.
lan nu'mina lakum cudurdaarkaas idima rumaynayno qad nabba'ana allah alla wuxuu nooga warramay min akhbaarikum wararkiina wax ka mida ilaahay baa na ogeysiiyey wasayara allaahu camalakum warasuuluh camalkiina allah iyo rasuulkiisa muujin doona uma turadduuna aakhirana waxaa laydiin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi waashahaada allihii ku cilmiga badnaay waxa dadka ka maqan oo aysan ogeyn iyo waxa shaahidka u yihiin oo goobjoogga u yihiin oo arkayaan labadaba allihii caalimka ku ahaay adugu shaahid waxa ujeedidaa tahay laakiin allah waxa maqan iyo waxa jooga waa iskugu mid qalbigaaga iyo uurkaaga wixii ku jira iyo alla og yahay aduguna darbigaaga wixii ka xageeya waa qaybi kaa yihiin ila uma jeedida ma arkaysid uma turadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada allihii qaybka iyo shahaadada ku cilmiga badnaa baa laydiin celin doonaa haddii laydiin celiyo xisaab baa jira fa yunabbi'ukum wuxuu idinkaga warrami doonaa alleh bimaa kuntum tacmaluun wixii aad samayseen camalkiina khayr iyo shar buu idiin sheegayaa markaasuu idinku abaalmarinaya sayaxlifuuna billaah mar kale waxay idinkugu dhaaran doonaan magaca alleh lakum adinka idanqalabtum ilayhim markaad u soo laabataan xagga madiina oo jihaadkii ka soo laabataan maxay idinkugu dhaaranayaan litucriduu canhum inaad ka jeesataan oo aan la eedayn waxba loo qabsan maxaa u maqnaydeen maxaa dagaalka uga harteen ma jirto sayaxlifuuna billaahi lakum ilaahay bay idinkugu dhaaran doonaan magaca alleh lakum adinka idanqalabtum ilayhim markaad u soo laabataan litucriduu canhum waxay u dhaaranayaan marka waa cudurdaar inaad ka jeesataan fa acriduu canhum ka jeesta adinkoo liidayo xaqiraya innahum rijsun waa qurun iyo wasakh dad xun oo qalbiga iyo ictiqaadka ka jiranoo faasidow innahum rijsun waa najaas iyo wasakh wa ma'waahum hoyadkooda aakhirana jahannamu waa naarta jahannamo jazaa'an waxaa lagu abaalmarinayaa bimaa kaanuu yagsibuun wixii ay kasbadeen oo dembi iyo ay la yimaadeen baa lagu abaalmarinayaa yaxlifuuna lakum waxay idinku dhaaran doonaan litardow canhum inaad ka raalli noqotaan yaxlifuuna lakum way idiin dhaaranayaan litardow canhum inaad ka raalli noqotaan raalli ahaanshadiina marka muxuu tarayaa ilaahay hadduusan raalli ka noqon waxba uma tarayso fa in tardow canhum haddaad raalli ka noqotaan muslimiinay fa ina allaha alleh laa yardaa can alqowmi alfaasiqiin dad daacada ka baxay oo faasiqiina ilaahay raalli kama noqdo intaas ay fisqiga ku tilmaaman yihiin waxba lagama aqbalayo daacadii alleh iyo daacadii rasuulkay ka baxeen fisqigu waa alkhuruuj min adaaca dooliga ama facrada waxaa la yidhaha fuwaysiqa maxaa yeele markay godkeeda ka soo baxayso inay wax fasahaadisay uga soo baxaysa faasiq waa kaas fa in tardow canhum haddaad raalli ka noqotaan fa ina allaha laa yardaa can ilqowmi alfaasiqiin qowm faasiqiina marnaba ilaahay raalli kama noqonayo alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih wallaahu caliimun xakiim ilaahay wuxuu nooga warramayaa dadka reebaadiyaha ah dad gaalo ah iyo dad munaafiqiina iyo dad mu'miniina inay saddexdaa iskugu jiraan aayaad isdaba yaalla baa ilaahay nooga warramayaa alacraabu reebaadiyuhu ashaddu ayagaa adag kufran xagga gaalnimada wa nifaaqan
iyo munaafiqnimada ayagaa ku adag wa ajdaru ayagaa ku habboon oo munaasab u ah ku awla ah allaa yaclamuu inaysan ogaan xuduuda maa anzala allaahu calaa rasuulih allah wixii uu ku soo dejiyey rasuulkiisa inaysan xuduuddooda garan sidaasay ku yihiin oo ku habboon yihiin dadka reebaadiyaha dabeecaddooda way qallafsan tahay waa dad arxan daran oo naxariistu maaragtay ay ku yar tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista wuxuu noogu sheegay bukhaari iyo muslim in dad reebaadiyaha nabiga u yimaadeen markaasay ku yidhaahdeen atuqabbiluuna sibyaanakum carruurtiinna ma dhunkataan dadkii magaalada markaasay yidhaahdeen nacam reer magaalkii ayagu waxay yidhahdeen laakinaa wallaahi maa nuqabbil annagu laakiin ma dhunkanno ama ma shuminno ilmaheenna markaasuu nebigu ku yidhi awa amliku in kaana allaahu nasaca minkum araxma ilaahay qalbigiinna hadduu naxariista ka bixiyo ka siibay maanaa naxariis idiin hanan kara anug oo idin sii kara weliba nebiga calayhi salatu wasalaam markaas wiil uu awowo u yahay oo gabadhiisa faadima ay dhashay ayuu markaa dhunkanayay markaasuu ninkaan arkay markaasuu yidhi cunugaan aa dhunkanaysa maxaa u tahay awowowan waa gabadhaydaa dhashay kuwaan dhalna anaguma dhunkan u yidhi marka sidaas reebaadiyuhu aad u qallafsan yihiin oo kufrigoodu midka magaaliga waa ka adag yahay munaafiqnimadoodu kuwa magaalada waa ka sii daran yihiin xuduudda iyo inay ogaadaan tacaaliimta sharcigana ayagana waa ka sii fog yihiin alacraabu reebaadiyaha ashaddu ayagaa adag kufran gaalnimada wa nifaaqan munaafiqnimada ayagaa ku adag oo dadka kaleoo magaaliga uga adag kuwan kale waxaa laga yaabaa inay xoogaa ay mujaamalo iyo meelo kale soo wareegaan ayagu waxoodu waa cad yihiin wa ajdaru ayagaa ku habboon reebaadiyuhu allaa yaclamuu inaysan ogaan xuduuda maa anzala allaahu calaa rasuulih ilaahay wuxuu rasuulkiisa ku soo dejiyey xuduuddeeda inaysan garan ayagaa ku habboon maadaama ay ka fog yihiin meelihii tacliimta wallaahu alleh caliimun waa alla ku cilmi badan dadka quluubtooda iyo niyaadkooda xakiimun haddana waa alla xakiim ah oo og waxa uu maaragtay jidaynayo addoommadiisa waxa u qaybiyey cilmi iyo jahli iimaan iyo kufri iyo munaafiqnimo ilaahay isaga xakiim ku ah ciddii mutaysatay in wax la baro iimaan iyo cilmi la siiyana isagaa caliim ku ah wa min alacraabi reer baadiyaha waxaa ka mid ah man yatakhidu qolo ka yeelanaysa oo ka samaysanaysa maa yunfiqu waxa uu bixinayo wuxuu ka dhiganaya oo ka samaysanayaa maqraman khasaaro uu ka samaysanayaa iyo magdhow maqram waa waxa adiga kugu laasimay oo inaa magtid lagaa rabo fahum min maqramin muthqaluun wa min alacraabi reebaadiyaha waxaa ka mid ah man yatakhidu qolo ka samaysanaysa oo ka yeelanaysa maa yunfiqu waxa uu bixinayo oo ilaahay jidkiisa ku bixinayo maqraman dad khasaaro iyo kharaamo ka dhigaya wax qaana loo haystay inuu asagu wax bixiyo oo fii sabiilillahi wax ku bixiyo uma arkaba khasaaro iyo kharaamo u arkaa wayatarabbasu bikum waxay idinla suganayaan addawaa'ira aafooyinka iyo balaayooyinka wareega bay idinla suganayaan masaa'ib inay idinku dhacaan yatarabbasu bikum waxay muslimiinay idinla suganayaan kuwaas addawaa'ira balaayada wareegta bay idinla suganayaan inay idinku dhacaan calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu saw balaayada wareegta middeeda xun ayaga allaha ku celiyo wallaahu alleh samiicun waa alla maqlid badan addoommadiisa waxa ay ku baryayaan caliimun haddana ku cilmi badan qofkii mutaysta in maaragtay loo gargaaro oo wanaag qalbigiisa la geliyo
iyo midka in la hoojiyo mutaysta calim buu ku yahay alle wa min alacraabi waa qaybtii saddexaad reebaadiyaha waxaa ka mid ah man yu'minu billaahi waanagii soo marnay kufri iyo munaafiqnimo iyo iimaan saddexdaas iskugu jiraan acraabtu wa min alacraabi reebaadiyaha waxaa ka mid ah man yu'minu billaahi walyowmi alaakhir qof rumaysan allah iyo maalinta dambe oo aakhiro wayatakhidu ka yeelanaya maa yunfiqu waxa uu bixinayo oo ilaahay jidkiisa ku bixinayo ama sadaqaad qurbaatin cinda allah ilaahay agtiisa wuxuu ugu dhowaado buu ka dhigaya oo ka samaysanaya kii horena maqraman buu ka dhigay wax qaana oo asaga lagu leeyahay ama khasaaro uu arkay buu ahaay kanna waxa weeye yatakhidu maa yunfiqu waxa uu jidka ilaahay ku bixinayo wuxuu u arkaa oo ka dhiganayaa qurbaatin cinda allah ilaahay agtiisa wax loogu dhowaado wa salawaati rasuul iyo rasuulka ducooyinkiisa uu u ducaynayo ayaga dadka wax bixiyey alaa inahaa qurbatun lahum alaa waa kelimatu tanbiih baraaruga waa hurdada ka kaca hooy inahaa ayadu qurbatun lahum waxay u tahay dhowaansho oo qasadkii iyo niyadii ay ku bixiyeen ilaahay inay ugu dhowaanayaan nebi moxamedna ugu ducaynayo middaas bay u noqonaysaa inahaa qurbatun lahum sayudkhiluhum allahu fii raxmatih alla wuxuu gelin doonaa naxariistiisa ina allaha alle ghafuurun waa alla dhaafid badan ciddii u toobad keenta raxiimun haddana u naxariisasho badan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آيضا إلهي وحنوغا ورميا إنو رالي كالنقضي ضدكي إسلام كأسو هرمري gelitaankiisa oo muhaajiriin iyo ansaar iyo wixii ka dambeeyey oo wanaaggoodii iyo wixii ayagu ay aaminsanaayeen ama caqiidaysnaayeen ku raacay dadkaas assaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar muhaajiriin waxaa la yidhaha dadkii maka iyo agagaarkeeda ka soo hijrooday oo madiine yimid ansaarna waxaa la yidhaha dadkii ay madiine ugu yimaadeen oo u hiiliya u gargaaray oo soo dhoweeyey kuwaasaa la yidhaahdaa dadkii ka dambeeyey marka wataabiciina lahum biixsaan saxaabadu laakiin muhaajiriin iyo ansaar labadaasay yihiin waasaabiquuna kuwii hormaray alwaluuna ee horreeyey islaamnimada ku horreeyey min almuhaajiriina waalansaar oo dadkii ka soo hijrooday guryahoodii carruurtoodii xoolahoodii wal ansaar iyo kuwa u gargaaray saabiqiintu waa kuwaas waaladiina itabacuuhum biixsaan iyo kuwa ku raacay wanaagga ay ayagu ku sugnaayeen radia allaahu canhum qolooyinkaa saddexda ah labada muhaajiriin iyo ansaar iyo wataabiciina lahum biixsaan ilaahay baa raalli ka noqday wanaaggaas ay sameeyeen wa raduu canhu ayaguna raalli bay ka noqdeen ilaahay abaalmarinta uu siiyey wa acadda lahum alla wuxuu u diyaariyey jannaatin beerayaal tajrii ay qulqulayso taxtahaa qur-aanka inta kale min taxtihaa halkaas meela waxaa uga jirta taxtahaa inta kale laakiin waa min baa ku jirta min taxtihaa acadda lahum jannaatin buu alla u diyaariyey tajrii ay soconayso taxtahaa jannaadkaas hoostooda alanhaaru webiyaalkii afarta ahay oo biyo iyo caano iyo malab iyo khamro khaalidiina fiiha abadan ayagoo weligood ku waaraya
ذلك الفوز العظيم جنadaas loo diyaariyay iyo waaritaanka ay ku waarayaan waa liibaan aad u weyn macnahaas wax badan soo marnay marka dadka muhaajiriin iyo ansaar nacaya ama wax ka sheegaya oo lacnadaya dadkaasi xaq uma leh inay ku abtirsadaan dadkan u taabiciina biixsaanin maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa raalli ka noqday radia allaahu canhum baa la leeyahay qof ilaahay raalli ka noqday haddaa aduu la colaytantid waxaa noqonaysaa man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi ilaahay dagaalkiisa marka iskama celi kartid qolada raafidada la yidhaahdo oo la colaystan saxaabada nebiga oo u caraysan oo caynaya oo lacnadaya dadkaas caqligoodu waa dabagedisan yahay abubakar iyo cumar iyo caaisho iyo wixii la mida ilaahay bay ugu dhowaanayaan lacnadooda marka ilaahay waa uga fogaanayaan moogiye uma dhowaanayaan wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala alnifaaq laa taclamuhum naxnu naclamuhum sanucadibuhum maratayn uma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim ilaahay wuxuu rasuulkiisa u sheegayaa in ay ka mid yihiin carabta qabaa'ilkooda dad deggan madiine hareeraheeda oo munaafiqiin ah weliba munaafiqnimada waa dad ku maaragtay adkaaday oo maradka waxaa la yidhaha qofka aad u adag dad xiiran oo munaafiqnimadoodu munaafiqnimay dhaaftay hamhaban wa miman xawlakum waxaa hareerihiinna ka mida min alacraabi oo reer baadiyaha munaafiquuna ka mida kuwa munaafiqiina wa min ahli lmadiinati reer madiinana ayaguna waa ka mid waxaa ka mida maraduu cala alnifaaq munaafiqnimada kuwa ku murxay oo tamarud iyo fallaaganimo iyo kibir maaragtay la murxay laa taclamuhum ma ogid adigu naxnu naclamuhum ilaahay annagaa og sanucadibuhum maratayn 2 mar ayaan cadaabaynaa oo ama ha noqoto dil la dilo ama lasoo qafaasho ama gaajo iyo cadaabulqabri ama mid dambe ilaahay 2 maraa cadaabaynaa laa taclamuhum adigu ma ogid naxnu naclamuhum annagaa og sanucadibuhum waxaan cadaabi doonaa maratayni 2 mar uma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim cadaab weyn oo naartii jahannamo baa loo celin doonaa aakhiro laakiin adduunyadii ama ha la dilo ama ha la qafaasho ama gaajo iyo darxumo kale iyo cadaabulqabri ha galeen 2 mar baa la sheegay wa aakharuuna kuwo kale ictarafuu ayagu waxay ictiraafeen bidunuubihim dembigii ay galeen khaladuu camalan saalixan camal wanaagsan ayaa waxay ku barxeen wa aakhara sayi'an iyo mid kale labadaas isku dareen camal wanaagsanna waa sameeyeen camal xunna waa sameeyeen markii la sheegay marka munaafiqiintii xaalkoodii oo dagaalka ka haray ayagoo nacaya beeninaya shaki ka qaba hadda kuwo kale ayaa la sheegayaa xaalkoodu sidaa uu ka sahlan yahay oo dagaalkii way ka dib dhaceen wahsi iyo raaxa jacayl iyo ayagoo mu'miniina oo xaqii rumaysan wa aakharuuna kuwo kale ictarafuu bidunuubihim dembigoodii bay qirteen khaladuu camalan saalixan wa aakhara sayi'an waxay isku barxeen camal wanaagsan iyo camal xun labadaas isku dareen oo way qirsan yihiin rabbi subxaanahu wa tacaala acmaal wanaagsanna way sameeyeen acmaal xunna waa sameeyeen casa allaahu alla wuxuu mudan yahay an yatuuba calayhim inuu kuwa ka toobad aqbalo oo taxta cafwi illaah
وغفرانه بيكجران واسك عام آياته حديثكي النبي عليه الصلاة والسلام وهمين تلا العلميي هردد اللوي من لبا ملك أي ودان وميلا بدن سو مريان وحكمت أهاي وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وحي أهايان نبي الله تسي قيب كم مدنا وقروح قيب كم مدنا وفولحيين والله بدي عمل رسول داري مركا كواس إلهي واسكداي عسى الله مرة ليلي وبس عسى الله أن يتوب عليهم إن الله ألا غفور وألا رافض بدن إذا أطابتك أنت رحيم أن حريص شبدا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إلهي أمر يا رسول كيسا إنه ضدك حوله هذا زكاك قاضه زكاة أسمرك حكمة الله قاضي محيطها هاي أيها قالوا نظيفين يا ذنوبتي أي قلم بالله طهيرة يا ولو دعينا يا إحسانا ويؤتها ضدك مساكين تاهاي أي سينيه أيها واسكن نظيفين يا خذ قاد نبي محمد من أموالهم حوله هذا وحكم مدأ صدقة حولا لك ما قاضي وحكم مدأ وحلا قاضي هذه أفرتن أري أوليها هلنا فلا قاضي هذه صد الله أوليها هلنا فلا قاضي هذه شنجيل أوليها الريا لا قاضي جيل لك ما قاضي حتى مركي بطان سلاس سعنس زكاة مركي النوع عصر عقتي واسده كله مريه واسده كله كراسي واسده كله خذ من أموالهم حوله هذا وحكم مذا صدقة كقاد تطهرهم صدقة أسوا كل نظيفين إيسا تطهير بيوتهاي دم بقود الله قد طهيره وتزكيهم بها وأنا كنت تزكيين إيسا نظيفين إيا تزكيه أي نقان إيسا وأصلا معنى تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم مركا كقادد والدعاء وإلهي حوله هذا وقد دعاه إلهي دملاف ويدي سيدا سورة النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا صدقاء كانان ودعي جري اللهم صل على أبي فلان ما عرف كسر الشيء دعاء النبي والدعين أيوه إن صلاتك سكن لهم صلاة دادو نحريس بيؤتهاي رحمة بيؤتهاي إن صلاتك سكن لهم واحد دليل سدان markuu nabigu dhintay qoladii Abu Bakar zakada ku diiday ayaa waxay yiraahdeen adiga saka kuma dhiibeen anaga maxaa yeelay inna salaataka sakan lahu nabi Muhammad ali booski nabi Muhammad uu jooga Abu Bakar Umar markuu qabto booski nabi Muhammad uu jooga marba hadii uu wax ku dhaqayo diinka islaamka waa khalifatullah inna salaataka ducada aw ducaynaysid sakanun lahum دجنان يحصل ينحرس ما يؤتهاي والله الله سميع والله مغلط بدن دعاء هذا عليم هذا نكون علم بدن إذا واحد لقى أقبله أو أهل كأوه يكون لقى أقبله مركز سميع عليم ماشي مركز أي جوة محل كذا يا المفسرين ألم يعلموا ميسن أجين أن الله هو يا الله يقبل التوبة عن عباده الدومديسا إنه التوبة كأقبله عندي أصول لابته مركا وحا لسكو كعينيا إن توبة للدلبه أو إلهي سبحانه وتعالى توبة مارت الله ويديسته سيدن بيجي لك أقرده أو لغو طهره ألم يعلموا ميسا أغين أن الله هو الله يقبل التوبة عن عباده الدومديس إنه كأقبل التوبة ويأخذ الصدقات صدقات كان إنه كقاد ضدك وكأقبل معناها أيضا يقبل التوبة ويأخذ الصدقات يعني
صدقاتكينا وكأقبلي وأن الله ألا ميسن أغير هو ألا التواب الله توبة أقبل بدن إنه يهي الرحيم نحريس بدن قفكي التوبة كان إلهي توبة كأقبلي باب كاس محرنا إلهي لقى قارق الرحض إنه قلباتك كسوب بحضه أما قفك أيسا نفته هل كان إيمان وصدقوا ييرين قفكي وح صدق يستنى إلهي ما كأقبلي وعمل النبي عليه الصلاة والسلام من تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي فلوه سيدا فرسكي سيركا وبرباريو ودرمانكا با إلهي صدقذي وكردينيا ووحير بهذا بورا كلا لنقلس وفي صدقة حلال لبحا إلهي ما كأقبليا وأنا أكردينيا صدقة أسو مال بالله لغا كيد بيؤتهاي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أيضا معناها صمرني وقل وحاتر هذا اعملوا شقية عمل سماية ضدو فسيرى الله وحو موجين دونا إلهي وأجيداه عملكم عمل كينا ذاتك الله ظاهرين يا الله موجين يا ورسوله وموجين يا والمؤمنون مؤمنين ترى موجين يا والله جيدا قف كان عملك وقبنا يا عمل وناكسنا سوى عمل حن لكن وحلي عمل هلا السماء لا بد من عمل قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون وعليذين عردونا إلى عالم الغيب والشهادة اللي يكون علمك بدناي وحدتك كم غنى غيبك آيسا أجيدين يوحى شهادة أجيدان فينبئكم وإذا قوى رمى يا الله بما كنتم تعملون وحيات سميسان بالليدين شيئا يا الله واكن أبا المرين تهدي قبصدا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبلى السرائر ولا مجنة وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم أيضا وحتاس وقوى الرميسة سدح ذين غزوة تبوك أيقوا وناكسا وعافمات قبا حول هايستا كهري كبعدنا aan been sheegin markii nabigu soo laabtay oo yiri wax cudur daar anagu ma lahayn saddexdaas nin waxa la dhigi jiray Murara ibn Rabi' midka hore Murara ibn Rabi' iyo Ka'ab ibn Malik iyo Hilal ibn Umayya laba nin oo kamida waxay ahaayeen asxaabu Badr Murara ibn Rabi' iyo Hilal ibn Umayya Badr bay ka qayb galeen كعب بن مالك أسمه بدر كما قيب قرين لكن بيعته عقبة أو كهر ريسي أيو مارتي كقيب قلي وحور اللي هاي مركو كشاكين أنا بدر إنك استطاعت الله شاكو أو أي مشهور تهاي أنا مسي سنة بيعة العقبة إذا بالله هذا اللي مركي هراء صدح لاسني مركي أرنتو دي بالله دي dadkii loo cudur daaray oo munaafiqiinta kuma jirin mana aysan dhaaran runtay sheegeen waxa la yiraahdo idinku hawshiina dib baa loo dhigay aakhirkiina waa laga aqbalay xadiis dheer oo maartay suuratu tawba aakhirkeeda aan u tagi doono qaybaha dambe wa aakharuuna kuwa kale murjawna ama murji'uuna waa laba qiraw waana isku macne aakharuuna kuwa kale مرجونا وحادب الله دغاي ارنكودا لامر الله امرك الله دب لوغو دغاي oo nabiga waxa leeyahay kuwaan u kaad ayaga kuwa wax laga aqbalay cudur daarka kuma jiraan konton bari ka bacdi
ayaa maarata arrintoodii aayaad ku soo degeen wa aakharuuna murji'uuna haddii la yidhaahdana dib baa loo dhigow murjawna liamri illaah amarkii allah dib loogu dhigay imaa yucadibuhum allah inuu cadaabo wa imaa yatuubu calayhim iyo inuu ka toobad aqbalo labadaas u dhexeeya waa laga toobad aqbalo aakhirkii wallaahu alleh caliimun oo alla ku cilmi badan ciddii mutaysata in la ciqaabo iyo midii mutaysata in la cafiyo xakiimun afcaashiisa iyo aqwaashiisa alla xakiim buu ku yahay والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم إلى آية كلا آية سبب النزول كذا وحو أهاي مدينة انتو سنبقوا مدينة إيمان وحاجري qabiilada ansaarta khasraj oday uu ahaay oo la dhihi jiray abu caamir arraahib laakiin markii dambe nebigu u bixiyey abu caamir alfaasiq raahib waa nin cibaado ah marka nasaaru noqday xilligii jaahiliga ayuu katoolig noqdo oo kirishtaanboobay xoogaan ahlu kitaabka waxbuu ka soo akhristay nin cibaado iyo sharaf khasraj kulana waa ahaay oo oday u ah markuu nebigu madiine soo galay oo uu maaragtay yimid ayaa muslimiintii ku soo kulmeen islaamkii marka kelimad sarraysa ayuu yeeshay badar markii la galo oo la guulaystana wayba maaragtay sii qaraxday marka ninkaa laciinka abu caamir alfaasiq asagoo candhuuftiisa ku murgaday ila nin odaya wuxuu ahaay laga dambeeyo boqor ah cadaawanimo marka muujiyey waa baxay makuu tegey mushrikiintii quraysh ayuu la heshiiyey in nebi maxamed ay la dagaalamaan qoladaasuu soo waafaqay wixii uu maaragtay soo ururi karo ayuu soo ururiyey uxud oo badar ka dambaysay ayuu soo galay arrintii muslimiinta marka xoogaa imtixaan baa yimid inkastoo markii dambe ayagu guushi ay yeesheenoo ayagii ay ka carareen marka ninkan abu caamir la yidhaahdo godad badan buu maaragtay safkii ka qoda muslimiinta mid ka mida nebigaa ku dhacay markaasaa wejigiisa dhaawac soo gaaray iligna maaragtay iliga korona waa maaragtay iligan hoose rabaaciyada isna waa jabay wejigana maaragtay waa ka daqramay nebigu ninkan marka wuxuu sameeyey arrintaas wuxuu isku dayey dadkii ansaarta ahay inuu soo jiito oo yidhaahda odaygiinaan ahay waa kana igu soo biira waa diidan markii dambe wuxuu sameeyey meel xaafaddooda ku yaalla ayuu masjid ka sameeyey masjidkaasoo balaayada iyo makriga iyo colaadda lagu maaragtay sameeyo masjidu diraar ayaa loo bixiyey arrintaas ka sheekaynaysa marka aayadda waaladiina kuwa ittakhaduu yeeshay masjidan masjid diraaran ee dadka lagu dhibo muslimiinta wa kufran iyo gaalnimo wa tafriiqan bayna almu'miniin mu'miniintana lagu kala geeyo wa irsaadan loogu talagalay liman xaaraba allaha wa rasuulahu min qablu hadda ka hor nebi maxamed iyo allah kuwa la dagaalamay baa waxaa loogu talagalay in ay maaragtay dhufays ka dhigtaan wala yaxlifunna waxay ku dhaarteen in aradnaa maa aradnaa ulama jeedin masaajidkan aan dhisnay ila alxusnaa wanaag baan ula jeedno dadka odayaasha oo aan madiine ka gaari karin masjidka nebiga iyo kuwa dhoolayaasha iyo kuwa maaragtay jiran iyo dadka markii biyo iyo wax yimaadeen iyo waxaas wanaaga ugu talagal masaajidkan dhib iyo anagu uma talagelin wallaahu yashhadu innahum lakaadibuun ilaahay wuxuu marag ka yahay inay beenaalayaal yihiin ee ay ugu talagaleen dhib diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin
وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل رصدك ووح رفيس يعمل له جرو والذين كوا اتخذوا سمايستي مسجدا مسجد بي سمايستين مسجد كي محروق دبا لوغما تلقلنا waxa loogu talagalay dadka in lagu soo dhaweeyo oo dadka muslimiinta isku kaashadaan marka dib iyo balaayo hadii loo sameeyo masjid daraar noqdo masjidan bay sameeyeen daraaran ee dadka lagu dhibo wa kufran iyo gaalnimo oo dad gaalaha isku iimaanaya wa tafriiqan bayna almu'miniin mu'miniintana waa lagu kala geynaya oo waa kala qaybin wa irsaadan waxa loogu talagalay liman xaaraba allaha wa rasuulahu min qablu dadka ilaahay iyo rasuulkiisa inay la dagaalamaan isku dayay bay u tahay rasad iyo dhufays wala yaxlifunna waxay ku dhaaranayaan markii la yidhi masaajidkan maxaa ka wadiin masjidka nabiga meesha ku yaalee in aradnaa maa aradnaa ulama jeedin masaajidkan iyo dhismihiisa ila alxusnaa wanaag baa ula jeednay wallaahu alle يشهد وحمرك يهي إنهم لكاذبون إن بيان لياليهين لا تقم فيه أبدا نبي محمد لا تقم فيه مسجد كاستحيي استاجن أبدا ولغا لمسجد مسجد أسس على التقوى تقوى الله عبسد الله لغو آسي من أول يوم maalintii ugu horreysay Madiina soo gashay masaajidkii lagu aasaasay oo lagu bilaabay taqwada alle ahaqu midkaasa mudan an taquuma fiihi inaad dul istaagtid oo tagtid marka waa masjidu Quba oo masaajidii nabiga oo Madiina ka binay ugu horreeyay oo nabigu waliba ziyaaro jiray kulla sabtin maalin kastoo sabti ah asagoo gaadiid wata iyo asagoo lugaynaya labadaba waana sunno qof kastoo Madiina taga ama umraha u tago ama xajha u tago inuu masjidkaas Quba ziyaarto oo laba ragcado ku maaratay ku tukado ku duceysto la masjidul masjid usisa ala taqwa absida alla lagu aasay min awwal yawmin maalintii ugu horeysay ahaqu كاسا مدن أو هبون أن تقوم فيه إن استاكتد فيه رجال رقبا كجرة يحبون أن يتطهروا إن إسناديفيان جعل أو مركي أي طهارة قادنيان ومارتي بيو إيو وحي مارتي كترتريان محلكي رقح بيانا وقضوا مرينين نظافة هذا ودنا عليه مرك فيه رجال ركبا كجرا مساجد كاس يحبون أن يتطهروا إن إسناديفيان والله ألا يحب المطهرين ذاتك إسناديفية إلهي وجعلي هاي هو أنا إسناديفية إلهي مرك ما جعل ضد نوع عاصي هاي مرك مسجد كاس مرك هو مسجد قباء سيدا تفاسير أبادان تهاي قصوا تفاسير كان إجران أفمن أسس بنيانه قفك آساسي أفمن أسس قفك آساسي بنيانه لاسمه على تقوى من الله عبسي الله حقيسا والرضوان إيران لأهانشو خير المكاسة وناك بدن أمن أسس بنيانه مسقفك لاسمه كو آساسي على شفاء جرف قبي قركيس هار دعية فانهار به وكسو الدمي وقالها مسجد الدرار أيضا وحي كو آساسين مسجد كودا على شفاء جرف مساريها قبي قركيس وقنعيا أفمن أساس والله اسمر بردقين لبدا سنة السنين تقوى الله يرى لأنشاء الله qofka dhismihiisa ku aasaasay iyo qof dib iyo kufri iyo tafriiq ku talagalay labadaas ma sima afaman asasa bunyaanahu dhismihiisa qofka ku bineeyay
ku aas-aasay aasaas anagu saasaan u naqaana waa carabi laakiin soomaaligana waxaa leeyahay guriga aasaasiisa saasuu noo yahay calaa taqwaa min allaahi wa ridwaanin khayrun miyaa khayr badan am man asasa bunyaanahu mise qofka dhismihiisa ku aasaasay calaa shafaa jurufin waa god qarkiis darafka waa shafaa waa meeshaan jurufkana waa godkaan qodan haarin ku soo dumay fanhaara bihi ku dhacay fii naari jahannama ayuu kula dhacay dhismihiisii asagiiba wallaahu alleh laa yahdii ma hanuuniyo alqowma aalimiin qowm daalimiina oo ayagu islaax iyo wanaag aan u qastayn marna ilaahay ma hanuuninayo laa yazaalu kama tegayo bunyaanuhum dhismahooda aladiina banow ay dhiseen riibatan fii quluubihim shaki iyo munaafaqnimo qalbigooda inuu yahay ma ka zuulayo laa yazaalu bunyaanuhum dhismahoodu kama zuulayo alladii banow ay dhiseen dhismaha ay dhiseen kama zuulayo riibatan fii quluubihim qalbigooda inuu ku yahay shaki ilaa an taqataca quluubuhum quluubtooda in la jaro moogiyo dhintaan wallaahu alleh caliimun waa alla ku cilmi badan acmaasha ay khalqigiisu qabanayaan xakiimun abaalmarintiisana xakiim buu ku yahay khayr iyo shar wixii uu ku abaalmarinayo asagaa ilaahay xikmad u leh wallahu aclam